Samsam Maxamed Aqool waa gabar da'yar oo ku nool magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Samsam aabaheed Maxamed Aqool ayaa waxa uu ku xiran yahay xabsi ku yaala dalka Cumaan, waxaana la sheegayaa isaga iyo maxaabiis kale oo ku xiran halkaasi in ay la soo daristay xaalad caafimaad darro. Samsam ayaa waxa ay sheegaysaa in aabaheed nolol iyo geeri midna aysan ku ogeyn, balse dadku ay sheegayaan in aabaheed uu nool yahay. Samsam ayaa cod dheer ugu baaqday dowladda Soomaaliya ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre, dhammaan dadka muslimiinta ah gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed in loo sii daayo aabaheed Maxamed Aqool oo ku xiran dalka Cumaan. Rabana anaga aabahay nool yaa dhimay anaga warka ma hayno. Ana dawladda waxa ka bariyana in aabahan loo soo sii daayo. Ana dadku marka la hadlaan anaga waxa dhaayaan waa nool yihiin kaliya, laakiin anaga nool yaa dhimay warka ma hayno. Anaga aabayaashan dambi laguma qabsan, waxba laguma xiran, bilaa dambi meesha ugu xiran yihiin. Ana dawladda Soomaaliya waxa garabnaa in aabahan loo soo sii daayo. Waxaan loo sheegay inuu xanuunsan yahay, anaga waxaan ku ognahay ma garanayno. Anaga cadaalad kuma wixirna, cadaaladna ma sameynayaan dadkaas. Anaga waxa bariyaa ummadda meesha joogto dhan in aabahay igu soo duceeyo. madaxweyne Maxamed Farmaajo anigu madaxweynaha wax ka codsanaya in aabahay ii soo sii daayo. Xasan Khayre ka codsanaya in aabahay ii soo sii daayaan. maalin anaga waa ooyeynaa, waxaana ka warwarsanahay aabahay. anaga wuxuu ku nool yahay maanta ma ogin, silic miyuu ku nool yahay ma dhibaato ku nool yahay anaga waxaa ka ognahay ma garanayno. ani ilaahay waxa ka baryaa in ilaahay aabahay ii soo sii daayo. ummadda dhan Soomaaliya waxa ku codsanaya in ilaahay aabahay ii soo sii daayo. Qof kasta oo damiir iyo dareen damqasho leh waa dareemi karaa dareenka maqnaanshaha waalidka. Samsam Maxamed Aqool waxaa ka maqan aabaheed Maxamed Aqool. haddaba walaalka muslimka ah si ay u hesho aabaheed la wadaag fiidiyowgan dhammaan ummadda muslimiinta ah si ay u gaarto madaxda dalka ugu horeeyo madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka.